ma doonayo inaan ku fogaado arrimaha ciidamada laakiin waxa cad in xukunka ku dhacay dolaal aanu ahayn xukun waafaqsan cadaaladda markii lagu eedeymihiisii la yidhi codka la duubay codkiisii ma la isku raacay inaanu codkiisii ahayn iyadoo maanta aynu joogno qarnigii 21aad oo qof kasta oo binaadana soconaya codkiisa la samayn karo oo xataa qofku isagoo dhaqdhaqaaq iyo socod loo samayn karo in maanta inta la isku dayo in la malaawaalo codad haddana markii cadaan waayeen lagu yiraahdo inaad waxaad la xidhiidhay qof xamar joogaad la xidhiidhay arrintaasi waa cadaalad darro ma geeyo jaamac dolaal ma geeyo jaamac haddii uu dembi galo waa raggii maanta creditka bangiga waxa uu yaalo waa raggii maanta isticmaali lahaa wey jaamac waxa maanta uu ku badbaadi lahaa haddii ay cadaaladi jirto wixii Soomaaliland soo qabtay buu ku badbaadi lahaa ayuu ku badbaadi lahaa xataa hadduu dembi galay waxaan leenahay jaamac xorriyadiisa loo soo celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi waxaan leenahay arrintaasi waxa loo tirinaya inay adiga ku fadhido madaxweyne waa nin weyn ninka la yiraahdo jaamac maanta oo aan xamilaynin caafimaadkiisa marka la eego aan xamilaynin xariga iyo dactarrotoona aan xamilayn ka xorriyadiisa u soo daa madaxweyne jaamac waa nin aad garanaysa jaamac wuxuu waddankan u soo galay iyo wuxuu yahay aad garanaysa wey jaamac waa naan adiga cidi kaaga waramaynin marka jaamac sharaftiisa yaan lagu ciyaarin madaxweyne dadan jaamac garanayna yaan sharaftiisa ku ciyaarin maanta dadka ama dadka xariga jaamac ka danqaday ee u mudaharaadaya magaalooyinka waxaan leenahay jaamac walaalayaal jaamac kaligiin idin kama xidhna jaamac Soomaaliland buu ka xidhan yahay jaamac qof idinka xidhan maaha maanta xaaladahan ku jirnana isu soo baxyo fara badani waxay khalkhal gelinayaan caafimaadkeena waxay khalkhal gelinayaan wax kasto maadaama xaalada iska jiraan ay khalkhal gelinayaan marka waxaan ka codsanaynaa jaamac xorriyadiisa uu heli doona haddii Ilaahay ka dhigo